shantii kursi ee ugu dambeysay ayaa doorashadooda waxaa lagu soo gabagabeeyay degmada Elwaq ee gobolka Gado oo ah deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland. goobta doorashada ay ka dhaceysay ayaa waxaa korjoogta ka ahaa xubno ka socday guddiga doorashooyinka heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka labada gole ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo gudoomiyaha degmada Elwaq. shantan kursi ayaa markii doorashada la soo gabagabeeyay waxaa natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland Siyaad Maxamed Mursal. maanta si loo kala helay kuraasta waa sidan kursiga 131 waxaa ku guuleystay Axmed Cusmaan Ibrahim. kursiga 122 waxaa ku guuleystay Mursal Maxamed Khaliif. kursiga 110 waxaa ku guuleystay Maxamed. kursiga 123 waxaa ku guuleystay Faadimo Faarax Aadan. kursiga 125 waxaa ku guuleystay Cabdirashiid Maxamed Ducaale. waxaan u rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed dowlad khayr qabto oo cusub iyo baarlamaan khayr qabo oo fiican. deegaan doorashadan hadda aan idin kala hadlayo maanta ee Elwaq shalay 12 baa la doortay maanta 5 isku darkooda waa 16 kursi. 16 kursi ee ku asteysnaa deegaan doorashada labaad ee Jubbaland halkaas ay ku eg tahay. horeyna waxaan u sameynay 27 deegaan doorashada koowaad oo lagu qabtay Kismaayo. halka waxaa isku darkooda noogu dhameystirmay 51 xildhibaan oo Jubbaland u matali doona dowladda federaalka baarlamaankeeda. Khadar Iimaan Dhaqane, warbaahinta qaranka, Kismaayo.